إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد فيا عباد الله ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحويا لقفك مسلم كاه حرمو إيا شرف وين في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة لبضبا الله سبحانه وتعالى وكرامه كرامة إلهي وصيي الدنيا آخرة با ومذا ذياد قيمة بدن إلهي كرامة مسلم كوسية وحكم إنه حرمي إنديجي صلى داديو والله قد داديو ظلمي يقردر الله سبحانه وتعالى وديني نبينا عليه الصلاة والسلام وحو كتل مامي حديث صحيحة كما في البخاري من حديث سعيد بن العاص رضي الله عنهما وحو النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما قفك مسلم كاهي كما زولو أما كما تغو إنو كسغناضو فسحة إيا واسع إيا بلاد راحو إيا وحويان رين انت آنو عصيب قف مسلمة أما ديك حرام الدادينتي انتارو أصيبين بالنبي قول عليه الصلاة والسلام سيدا درادي القفك مسلم كاهي ومن حقوق له وانا من حقوق له له حق وعليه حق حقنا واليه هي حقوقنا والله هي سيدا شريعتنا وناكسني اي نو شيكتين عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وحكوري بخاري في صحيحه إنه يري إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله وحكم ذا وحيالها نفته كل عضو يتلحموين كقفكو كل عضو ميلو وقبحنا آنو لهين إنو داديو ديق حرمة إيا شرف له ديق ولا ليال إيا ديلكو وحا لغو دادية قردرو أما ديق قردرو لغو دادية أما قودهان بديقو وحي لدادية إيا نفاها لله ووحا إلهي أددك دحدو دا أغو قرنقي أغو هرية ما ننت قيامه سيدو نبي كانوا ينوشيكي صلى الله عليه وسلم ورسول كانوا صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء
waxa u horeeya ee qiyaamaha lagu garnaqa ama lagu kala xukumaa waa dhiigaga baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam. ilaahay jalla wacalaa waxa u horeeya ee dadka uu ugu garnaqaa waa dhiiggii ay gardarrada ku kala daadsadeen ama waxa weeyaan xadgudubka ay markaa waxa weeye ku sameeyeen. waxaa kaloo nabigeenu yidhi sala allahu calayh wasalam kamaa fii saxiixi muslim awalu maa yuqdaa bayna annaas yowma alqiyaamati fi ddimaa. waxa u horeeya ee maalinta qiyaamaha lagu kala xukumaa dadka waa dhiigaga baa nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam. sidaa darteed walaalayaal waxaa waajib ah inuu qofka muslimkii ogaado dhiig qof muslima oo uu ku shubay xaqdarro iyo dulmi inuu haligi karaayo aakhiradiisa iyo adduunyadiisaba. xurmada ilaahay uu siiyey qofka muslimka ah dhiiggiisa iyo karaamada alla agtii uu ka leeyahay qofka muslimkii markuu garto waxa ku adkaanaysa oo uu ka haybadaysanayaa inuu gardarro ugu dhiiradaa mid adag oo waxa weeye ku adag bay noqonaysaa. cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canh wuxuu yihi cabdillaahi ibnu cumar ibnu khadaab waxaa loo sheegay cumar inan yar oo lagu dilay gaadmo oo bimacnaa la dagay oo dagnaan lagu dilay. wuxuu yihi cumar ibnu khadaab radia allahu canh dadkii dilay markuu tallaabo adag ka qaaday baa wuxuu yidhi low ishtaraka fiihi ahlu sancaa laqataltuhum bih. hadday reer sanca oo dhami sanca dadka ku nool oo dhami hadday dilka ilmaha yar isugu tegi lahaayeen oo ay ka wada qayb qaadan lahaayeen dhammaantood waan u dili lahaa ilmaha yar buuhi cumar ibn khadaab radia allahu canhu. waa karaamada uu leeyahay qofka muslimka ah waxa weeye dhiiggiisu. ilaahayna subxaanahu wa tacaala in badan buu qur-aanka inagula hadlay oo uu inoo sheegay xurmada dhiiggu leeyahay. walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima. war nafihiinna ha laynina oo nafihiinna ha dilina. ina allaha kaana bikum raxiima. rabbigiin waa mid idiin tudhaya oo idiin naxariisanaya subxaanahu wa tacaala. sidaa daraaddeed walaalayaal dhiiggu waa shay adag waxaana waajiba qofka muslimka ahi dunuub kasta oo uu galo inuu ogaado in ilaahay subxaanahu wa tacaala kula xisaabtamaya qiyaamaha. dhiigga muslimka ma bannaano in lagu daadiyo ta'wiil ama tafsiir qaldan oo qofku qaatay. ma bannaano in lagu daadiyo qabiil iyo qabyaalad. ma bannaano in lagu daadiyo boob iyo budhcadnimo. qofka muslimkii waa qof ilaashan oo aan dhiiggiisa in lagu xadgudbaa aanay bannaanayn. sidaa daraaddeed walaalayaal dilku inuu bato oo dilka maalayacniga aan macnaha ku fadhiyi inuu bataa waa calaamad ka mid ah calaamaadka aakhiru zamaan. wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam saacadda qiyaamada dhowaanshaheeda markuu nebigu ka warramayey wuxuu nebigu yidhi waxaa ka mid ah calaamadda dhowaanshaheeda an yakthura alharj inuu bato harjigu. qaaluu wama alharju yaa rasuula allah qaala alqatl. waxaa ka mid a baa nebigu yihi sala allahu calayh wasalam harjigu inuu bato. markaasaa lagu yihi harjigu waa maxay? waa dilka baa nebigu yihi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam. waa calaamad iyo amaaro ka mid ah amaaraadka aakhiru zamaanka iyo saacadda soo dhowaanshaheeda tusinaya inuu dilka maalayacnigihi ee ruuxa muslimkaa wax dhiiggiisa lagu shubayaba aan la garanayni inuu bataa. waa calaamad ka mid ah calaamaat aakhiri zamaan. aquulu maa tasmacuun wa astaqfiru allah. alxamdu lilaahi calaa ixsaanih washukru lahu calaa tawfiiqihi waimtinaanih وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها
لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار. ولا ليال دادين تديق مسلم كاه إلهي سبحانه وتعالى قيمها وسيه وحكم ذا إن يدو يدو كلف ضدها أكتيسا قرب كنيعه إنو أدو يدو هاللي قدم ما انتد في سفك دم المسلمين حرام ديق قف مسلمة أو حرمله ولا داديي أدو يدو إن يزوشو أي إلهي كلف ضد لزوال الدنيا هو عند الله أي النبي قول عليه الصلاة والسلام adduunyadu inay zuusho dhammaanteed oo allah uu tirtiro oo adduunyadaba uu gabagabeeyo ayaa kala fudud daadinta dhiigga qofka muslimka ah. marka dhiigga qofka muslimkii waa ka qiimo badan yahay adduunyada dhammaanteed sida nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. sidaa daraaddeed walaalayaal maanta dhiigga muslimku waa ashyaada uu qiimaha yar leh adduunyadan korkeeda daadinteeda, ama ha noqoto dunida guud ahaan amaba ha noqoto dalkan aynu ku nool nahay. dhiigga muslimka daadintiisu dadku way la sahlanaatay, waxaan macno lahayn oo sakaara ka biirsan bay dadkii isku laynayaan, qudha iyo ruuxa qofka muslimkaana lagu goynaya. dagaalo badan baa ka dhacay iyo dirir badan oo qabaa'il u dhaxaysa dalkan aynu ku nool nahay. waxa uu dambeeya kuwa ka socda bari gobolada saaxil iyo sool, dadka isku dilaya derkad yar oo meel laga dhisay oo waarkada ay ku filan tahay ee dad muslimiina qudhooda ku jaraya. waxa ay tusinaysaa macna darida iyo macna la'aanta dhiigga muslimkii agtooda uu ka macno beelay. ilaahayna agtiisa macnaha weyn buu ka samaynayaa inuu adduunyadaba kaxeeyo oo gebigeedaba adduunyada uu tirtiro ayaa ilaahay kala fuuqo muslima dhiigii la daadiyo. waxaan u dirayaa baaq walaalnimo iyo diineed dadka isku laynaya guud ahaan adduunyada meel kastoo dhawaqaygu gaadhayo, gaar ahaanna waaqicada iyo dhacdada taagan walaalaha iyo qabaa'isha isku dilaya sool, kuwa isku dilaya saaxil, ilaahay inay ka baqaan subxaanahu wa tacaala. dhiigga muslimkay daadinayaan ilaahay inay kaga baqaan, inay ogaadaan derkad iska daa iyo dhul la isku qabtee adduunyada gebigeeda ruux muslimiin uu ka qiimo badan yahay, inay casabiyadda iyo qabyaaladda iska ilaaliyaan. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka ku dhinta qabyaalad ama ku dhinta dagaal iyo fitno qabyaaladeed maata miitatan jaahiliya, bakti jaahilnimuu baktiya baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. wax macno ah alla agtii kama laha subxaana wa tacaala. qiyaamaha keligaa baa lagu keenayaa, adduunyadana keligaa baad timid, keligaa baad ka tegaysaa, keligaa baa lagu soo saarayaa. reer waxba kuu tari maayo, casabiyadii waxba kuu tari mayso, deegaan waxba kuu tari maayo, dunyo aad ku dirirtaa waxba kuu tari mayso, magacaad ku doodaa waxba kuu tari maayo. adigoo qaawan baad timid, adigoo qaawan baad ka tegaysaa, adigoo qaawanna waa lagu soo saarayaa. ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala. wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam qofka muslimka ee xaq darrada lagu dilay qiyaamaha wuxuu imanayaa isagoo dhiiggii ka da'ayo, kii dilayna markaa luqunta haysta iyo cunaha ilaahay buu hor keenayaa. wuxuu odhanayaa yaa rab salhu bima qatalanii, weydii ruuxani wuxuu igu dilay weydii. deegaanka iyagu nagu soo doontay, annaguu nagu soo xadgudbay, derkad buu meel ka taagay, ijaar buu igu soo durkiyey. allaagtii qiyaamaha wax ka shaqaynaya noqon mayso. ilaahay ka baqa dhammaanteenna ilaahay aanu ka cabsanno, dowlad iyo shacab, madax iyo mijo, deed waxa weeye culimo iyo caamo, ilaahay aynu ka baqanno. fitnada dhiigga muslimka ee daadanaysaana cidda daadinaysa ku koobnaan maysee ilaahay hadduu cadhoodo waa uu argoostaa subxaana wa tacaala. ilaahayna wuxuu yidhi falamaa aasafuuna intaqamnaa minhum, markay naga cadhaysiiyeen baanu ka argoosannay. waxaan leeyahay qabaa'isha ku diriraysa gobollada bariga ilaahay ha ka baqaan subxaana wa tacaala, dhiigga muslimkaa xurmadiisa ha dhowraan, fitnada ha ka fogaadaan. adduunyo waa la helaa, dad lama helo. qof kasta oo arladan ka tegey oo gacmahooda ay ku dileen soo noqon maayo, laakiin adduunyo kastay isku qabsadeen
ووح مركا لقى دبالن كرو أما لقى كبن كرو أو ليسو مقدبي كرو لكن روح ليسو مقدبي كرو قد يان ديال لغو شرين إلى يا لقى بقو شعب كان وحنو باقي يا قيبه سكل الدون أرنت أين نكجر منه مد هذا الكجر مده مد الدنيا كجر مده مد الدين كجر مده إن ندمان تين كلا جنتنه أو ديك مسلم كتشوتشنه أو فتنة كدرنا ساساني نو سامين إن الكهار تجنو حكومة دنا صدا سلاك إن كمر كاكا جلجلته أو يفدي ككعان روح الروح كبير كدي لي الظلمي إلا قصاص حقي إلهي الله مريو يحكم كي الله تاسال لغو يرين كرا لغو تشوتشين كرا ديك مسلم كا ولكم في القصاص حياة أيو إلهي يري نلول بايدين كتشرتا قصاص تبا ربي يري سبحانه وتعالى مركا دولة عد كدي شاحد قدب يقر دره وأين حكم كالله مريسا سبحانه وتعالى سيكون نولي أيوغو عبرقاتان مركا الدولة دي الشعبة ددال ديرادة بالينا وقبها هي فتنة داينا نسكي قبوتشنو دلقاي سامينيسا او ددكاي سامينيسا او دنياday saameynaysa oo dalkay saameynaysa oo diinta ayay saameynaysa fitnada ka dhalata daadinta dhiiga muslimka walaalayaal waxaan inta raacinaya arin baraarujin ah xaad inoogu badan marka la sheego xuma ama la sheego wanaag ama laga digo fitno dalka iyo dadka iyo diinta iyo dunyada midna baanu danahayn mashaakishay qabyaaladii nagu hayso waxa kamida in dadka xumaha jeceli xus dabada ay geliyaan inay noqoto xumuhu meel kasta uu joogo dhiig muslimo la daadinayo haday tahay macaasiya fisqi lagu sameeynayo banaan iyo hudheel haday tahay kufsi ka dhacay xero dawladeed iyo tushicib haday tahay xumaha dhamaantii waan ka digaynaa waanan ka gilgilanaynaa ilaahay baananu bari uga nahay subxaanahu wa tacaala meeshuu doono iyo dhinacuu doonaha ka dhaco ama hargeysaha ka dhaco ama berberaha ka dhaco ama gabiilaha ka dhaco ama booramaha ka dhaco ama dunyada kale ee hadalku wax ka tarayaha ka dhacee xumuhu meel kastuu ka dhacayo waynanu isaga digno wanaagana isfarno xumahana iska reebno waa sidaynu ku noqonnay ummaddii ugu khayr badnayd ummad arlada loo soo saaro waa sidaynu ku noqonnay walaalayaal qofka muslimka ah ee dadka wanaagga faraya xumahana ka reebaya ilaahay daraadii inuu u sheegaa waajib isaga ku ah dadkana waxa waajib ku ah wixii xumaa ee loo sheegay inay markaa ka waantoobaan wixii wanaag ee loo sheegana inay qaataan dhulku inama kala xigo xumuhuna inama kala xigo goobaha lagu samaynayaana inama kala xigaan dadka xumaha samaynayaana inooma kala dhawa ninka xumi waa nin xun goobta xumina waa goob xun xumuhuna waa xumaan fitnaduna waa fitno taasaa ballan inoo ah waana sidaynu ku badbaadayno haddaynaan ku qaylin xumaha oo aynu ka aamusno ilaahay waa ina haligaya nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war wanaagga isfara xumaha iska reeba haddaa sidaa yeeli weydaan kuwiina khayrka ilaahay ciqaab buu idinku soo dejin kuwiina khayrka badan baa ilaahay bari laydinka aqbali maayo buu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam da'yartana waxaan u dardaarmayaa oo aan aad iyo aad ugu celcelinayaa waar idinku waxaad tihiin cududii iyo curdinkii dalka iyo diinta iyo dadka u soo kacayay wanaaggu ha noqdo astaantiinna xumuhuna ha noqdo shaygaad ka diriraysaan meel kasta uu ka dhacayo ummaddiinnana khayr iyo wanaag ugu noqdo bartilmaameed sharka bartilmaameed ha u noqonina qofka xumaha sheegaya ha u dhaganuglaanina wanaagga dhagihiinnu ha maqlaan cumrigiinna iyo da'diinna aadka u curdinkaana ha ku dhammaysanina أما وحوي هكو بربريننا عدا إلهي سبحانه وتعالى اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم وفقنا لما تحب وترضاه يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهي